Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan waxaan rabaa inaan ku duubo muuqaal yar oo aad u kooban, waqtigiisuna aad u yar yahay. Anigoo tixraacaya qoraal aan kusoo qornay Telegramka public ah, kaasoo ahaa in funding talents iyo FTMO challenge aan ka hadalnay iyo kambaniyada maalgelinta bixiya. Sidoo kalena aan kugula wadaagay inaad iska diiwaangelisid linkii aan kusoo dirnay. Sidoo kalena aan sii raacnay weliba linkaas qofkii iska diiwaangelina caawin doono, kana caawin doono in uu ka gudbo challenge-ga iyo verification-ada. Haddaba su'aalo dhowr ah iyo kusoo celcelin badan oo dadka inuu soo celiyeen, waxaan garowsanay inaan soo duubo muuqaal kaas oo aan kaga hadlayo bal kambaniyada funding sameeya waxay yihiin iyo sida u shaqeeyaan. Kadibna aan bal kuu sharxo xogaa ku faahfaahiyo haddii aad qaadatid iyo sidii aad ku qaadan lahayd iyo sidii aad kaga gudbi lahayd iyo bal maxay ku kala duwan yihiin iyo maxay kala yihiin iyo kuwa ugu caansan iyo meesha ugu fiican aan ku tilmaami doono. Insha Allah waxaan rabaa inaan dul maro qodobadan ku muuqda halkan screen-ka kaga muuqda. Qof kasta isaga akhrin doona kolley Soomaali way ku qoran yihiin. Kow waa intaa kuu sheegay kuu sharxay videogana rabaa inaan ku sharxo intaa hore. Kadibna habkaas ku diiwaangelin doontid oo su'aalaha ugu badan ay ka jiraan iyo linkiisa u raaci doontid iyo waxa kuu soo bixi doona kulli muuqaal kale oo kasoo samayn doona insha Allah ayaan kasoo duubi doonaa haddii la idmo. Bal marka ugu horeysa saaxiibayaal waa maxay funding companies? Si aan waqti usoo koobo, funding companies ama kambaniyada bixiya maalgelinta haddaan Soomaaliyeedno waa kambaniyo ka shaqeysta inay dadka maalgelin siiyaan. Ayagu yacni markaad shaqeysid qofka aqoontaadii bay arkayaan, qofka aqoontiisa arkayaan, kadib waxay rabaan inay ka faa'iidaystaan aqoontaada. Return waxay ku siinayaan adigii inaad faa'iido heshid oo faa'iido gaaraysa ilaa 70% ilaa 80% aad markaa qaadatid wixii aad shaqeysay, aqoontaadiina ku maalgeliyaan. Sida caadiga ah qofka hadduu la yimaado xirfad ama wax ganacsi ah ama business ah, bangiyadana caadiga ah hadda waxaa jirta way u maalgeliyaan. Tan waa sidoo kale kuwan kugu maalgelinayaan yacni business iyo wax kala toona kaliya waxay maalgelinayaan aqoontaada oo waxay ku dhiibayaan kugu aaminayaan markii ay tijaabiyaan kadib aqoontaada waxay kugu aaminayaan akoomo waaweyn oo ilaa heer 300,000 ama 200,000 ku dhow. Marka waxaan isla fiirin doonaa sidee bay u shaqeeyaan. Kuwa aan ka sheekeynayno aad bay u tiro badan yihiin, kuwa local ay leeyihiin, kuwa waxay leeyihiin international ah, kuwa waxay leeyihiin kuwa waxay leeyihiin caan ah oo yacni dadka oo dhan adduunka oo dhan laga yaqaano wall. Haddaba sidee bay u shaqeeyaan kambaniyadan? Waxay u shaqeeyaan kaliya anoo soo koobaya waxay u shaqeeyaan in ay adiga maalgelin ku siiyaan oo akoon kuu dhiibaan. Maxaa isweydiinaysaa maxaa akoonkaa lagu dhiibay? Macnaha akoonka intaa la'eg kharashka la'eg maxaa lagu dhiibayaa? Yacni waa marka hore tijaabo aa martay oo aqoontaada la tijaabiyey kadib way rabaan in adiga waxay doonayaan marka inay adiga kula shaqeystaan oo aqoontaa aa lahayd ay maal gashtaan. Haddaba waxaa bixin doontaa maalgelin ama aan dhahay diiwaangelin, khidmad diiwaangelin oo aad u yar baa laga qaadayaa. Akoomadu ha ku kala duwanaadaan akoonka hadba intuu xaddigiisu leegyahay. Marka waxaan kuu sheegay in dib lagugu soo celin doono. Goormaa lagugu soo celinayaa? Markii aad verification ka gudubtid aditaanka aad la baxaysid marka withdrawal ugu horeeya waa refund oo lagu soo celinayaa. Maaha inaad suuqgelin u sameynayo oo baari kartaan. Magacyadooda waa haysaan waxay leeyihiin website kulli waa baari kartaan. Waxaan kula wadaagaya marka maxaa ka faa'iidaysaa? Maxaa faa'iido ku leh? Maxaa ka faa'iidaysaa? Caqliga bini'aadamka qof kasta wuu garanayaa yacni qof wax ku siinaya wuxuu faa'iido ku tarayo waa garan kartaa. Kaliya kuwan waxay ku kala duwan yihiin siin ma aha ee waa aan wada shaqeysano. Waxaa ka faa'iidaysaa marka
markii akoonka ku siiyaan kow horta waxaa ka faa'iidaysaa waxa koowaad ugu horreeya ka faa'iidaysid waa inaad heshid akoon weyn aqoonti waa leedahay haa in aad heshid marka akoon weyn oo macquul ah oo ku talagelin kartid kuna samayn kara faa'iido la taaban karo noloshaadana horumarin kara labo waxay horumarinaysaa marka akoon weyn haystid xirfadaada iyo in aad jeclaatid aad macnaha suuqii aad hoob fiican kasii yeelatid mustaqbal fiican kasii yeelatid halkii markii hore aad ka niyad jabsanayd akoonka oo gebigaagaba aadan akoonkaaga uusan soo saari karin ama uusan bixin karinba qarashaadka kugu bax bishii kolley faa'iidooyinku intaa ka tira badan yihiin maskaxdaada intaasaa ku jirta qof kastaba markuu ka fikiro marka ka fikir adigaba akoon lagu siiyey lacag yar laga qaaday haddii marka akoonkaas yani tastiga aa maraysid ama tijaabooyinka aa maraysid aa ka gudubtidna lacagtaa dib loogu soo celinayo kadibna akoon weyn oo ilaa xad macnaha yani lacag macquula ah adigoon deyn qaadan bangi tegin family olay saaran aa helaysid kolley faa'iidadeeda qof kasta inuu ka dhergsan yahan jeclahay marka saa loo faahfaahiyo lambar saddex waxaa weeye kuwa anagu tijaabinay marka waxaan ku sheegay inay jiraan funding companies ama shirkado ama kambaniyo adduunka laga leeyahay kuwa local ah kuwa la yaqaano kuwa aan wadankooda keli ku eg oo bixiya maalgelinadan marka waxaan ku sheegayaa kuwan inay yihiin waa wax adduunka oo dhan gaarsiisan oo local ka baxsan kuwa aan tijaabin waxaa kamid ah FTMO iyo funding talent oo FTM soo gaabiyey marka kuwa aan tijaabinay waa tijaabin waxaan ku leeyahay akoomaan ka haynaa oo aan hadda ku shaqeyno kuwa kale waxaa jira dhalinyaro ah ay leeyihiin oo hadda qaybtood verification marayaan qaybtoodna gudbeen alxamdulillah marka labadaasaan raba inaan marka isu kaa babadhigo haddii ilaahay idmo aan kii hadda fiican dee labadaba anaga ku shaqeynay labadaba aragnay waxay yihiin la macaamilnay waxaan ku lamar afar waxaa weeye kuwaan maxaan ku doortay labadan maxaan kusoo doortay labadan horta waxaan ku doortay oo kuwii kale aan ku sheegay aan kaga doortay waa horta wax adduunka oo dhan laga yaqaano oo wall ah oo aan local ahayn kow oo meeshaan joogo aniga adig meesha joogtid waddankaa joogtid kusoo gaari kara kaga shaqaysan kartid lambar labo waa wax dad badan oo yani maadaama forex ay inta badan tahay kindly markaan dadka la shaqaysano brokerkaaga waddanka loo ku yaalaa waxaa laga inaan qof broker ka shaqeeya ama hal qof oo caadi shaqsi uga shaqeeya inaadan garanin waa trust waxaan kula shaqaysano waa aaminaad iyo licensiga iyo yani waxa indheheen oo arkeen agaag kuwan marka waxa waaye waa kuwo dad badan tijaabiyeen oo aan aragnay withdrawgooda markii hore intaanan dooran kahor macnaha intaan hadda anaga aan dooran waxaan aragnay withdrawgooda ayagoo lacag la dhiganayo yani akooma laga qaadanayo aan dhaho ayagoo lacagtii akoomadii withdraw sameynaya haddii ilaa ku imaayo ayagoo lacagtii refund sameynaya oo lacagtii celinaya waxaas oo dhan sababahaas badan baan ku dooranay marka haddii aan ku daro marka midda shanaad oo ah maxay ku kala duwan yihiin labadoodu waxay ku kala duwan yihiin website baa jira sameeyey oo kuwa funding talentiga laftigooda ayagaas u fadhigay maadaama ay competitive yihiin oo labo yani shirkado oo is awood lig yihiin waxay isma fadhigayeen shirkada kula timas waa ina og tahay waxa kaga fiican tahay iyo waxa ay kaaga fiican yihiin inta badan qofka competitive kula ah waa ina ogaatid marka ayagu waa isma fadhigeen waxyaabo limit ah oo kooban annaguna waxaa weeye intaan ku dhex jirnay waxaan kasoo ogaanay baa jira marka intaanan u gudbin kuwa anagu soo ogaanay oo kuwan halkan ku qoran ah faahfaahintooda waxaa rabaa inaan kula wadaago in yar oo ilahay idankii ayagu isbarbardhigeen oo ayagu ay sameeyeen haag aan isla fiirino waa kan hortiina ka muuqda isbarbardhigoodii marka wax yar baan dul istaagaya mid kasta qodobada marba in waqti usii dheeraado halkan waxaa ku qoran funding talent halkan saa ujeedaan waa FTMO isbarbardhig yar ayaga sameeyaan kow waxay dhaheen account size modelka kow macnaha laba account isla baa la isbarbardhigayaa markaan saa ujeedid 25 kun markii la tagana kow
ayuuna sida ekaan doonaa saas isku bari doonaa marka waxaa la rabaa labada shay marka isku bari inay laba shay si laba barbardhigi kala yihiin laba account marka isku bari 100,000 ah akoonka halkan waa 100,000 price-ka oo aad bixinaysid marka hore price-ka meesha ku qoran waa lacagta aad bixinaysid oo ku yani ma gadanaysid akoonka kaliya khidmada oo laga qaadayo oo isdiiwaangelinta ama kirada dheh waxaa rabtid dheh isdiiwaangelin inta aan challenge iyo waxa lagu furin oo aan challenge gelin iyo verification waxa isdiiwaangelinaysid halkan akoonka waxa ku qabsanaysaa ku qaadanaysaa $610 يعني حاجة qiimaha kala duwan yihiin xaggan waxa ku qaadanaysaa $646 variation u dhexeeya calculator qaado calculator 610 iyo 646 waxaa aragtaa inuu dhexeeyo $36 halkaas faa'iida kaaga jirta waa meesha koowaad ugu horeysay halkan waxaa ku qoran payout split macnaha marka aad lacag la baxdid inta aad helaysid macnaha oo adiga iyo ayaga u kala qaadanaysaan percentage kala qaadanaysaan ilaa adiga waa shaqaysay oo shaqadii baa qabanaysay ayaguna waxay lahaayeen akoonka ku shaqeyn adiga ah kadib markii faa'iido la baxas marka oo ay faa'iido la gaaro ayaga waxa qaadanaysa halkan funding talent markii la joogo 80% adaa iskale 20na waxa iskale ayaga halka FTMO challenge ay tahay 70 to 30 toddobaatan adiga qaadanaysid iyo 30 ayaga qaadanayaan waxaa ku jiri karaa bangiyada lacagta soo marso kale inay khidmad ka koostaan that's not macna problem iyo macna badan sameynaysa maaha evaluation-ka waa two phase evaluation lagu sameeyo qiimaynta qofka lagu sameeyo mid meesha gaarin waa two phases oo phase 1 oo challenge oo aad taxaddi galaysid tartan iyo phase 2 oo verification ah oo hubintii iyo xaqiijinta ah in aad yani qofkii uu sii socon karo waa verification-ka halka waxa ku qoran time period-ka for evaluation time period-ka ku qaadanaysid horta verification ku meesha ka sameeyeen waa meeshan meelaha kale oo meelo badan dhowr meelood ka sameeyeen waa jirta laakiin tan oo meesha ugu weyn oo ka sameeyeen time-ka marka lagu siinayo oo evaluation-ka lagu sameynayo challenge marka joogtid waa 30 beri waa 30 days kana waa 30 days waa ka sameeyeen halkan waa 60 days halkan waa 60 days oo markii verification ugu geebtid 60 beri baa lagu siinaya 30 dheer lagu daray halkii challenge uu ahaa macnaha challenge waa caqabad ama taxaddi agalisid 30 beri uu ahaa labadaba halkan sidoo kale 60 beri noqonaysa okay targetka laga rabo marka verification ama challenge ku jirtid funding talent waa 8% macnaha halka FTMO challenge ay tahay 10% qof kasta oo si dhiib leh oo akhri kartaa waa aragtaa fiidiyowga duubaan ku casho markaad verification markii oo verify aan noqonaysidna waa 4% waa halfkeed halkan waa halfkeed waa 5% halkaasna faa'iido kale oo fiican marka ku jirto aragtaa waa discount aad u fiican whole trading on weekends ina weekends-ka trade kan sida akoon adiga leedahay oo kale ina inta trade gashid aan swing traders ah waa jira anaga halka day trade banahay oo maalinka caadiga habeenkii markaan seexanaba almost suuqa waa ka dhamaanay galbihii oo kale askay dhacaysa suuqa maba sii hayno trade badan laakiin dad swing trade ah baa jira oo aan scalping ahayn oo swing trade ah oo ay trade iska haynaya bil iyo 2 asbuuc ama asbuuc dhamaadkiisa marka weekendiga suuqa waa xiran yahay trade ma hayn kartaa halkan yes funding talent waa hayn kartaa trade hadaad swing trade tahay halka FTMO ay ka rabto inaad maalinka jimcaha ama Friday-ga oo suuq u xirmay waqtiga saacada ugu dambeysa iskula gaarin oo trade-ka axirta hagaag saaxiibada inta ka soo noqdo maxaa anaga soo ogaanay marka intaas waa isbadhig guud oo ayagu ay sameeyeen anaga waxaan soo ogaanay oo aan anaga inta ku jirnay oo kale yani aan ku dari karaa intaas aan dhihi karaa waan ku dari karaa oo waqtiga aan kula wadaagay FTMO iyo funding talent marka haddaan ka bilaabo ama FTMO labada kaan waan ka bilaabo funding talent ka bilaabaya waqtiga akoonka markii lagu siiyo bilowga akoonka saa lagu dhiibo waxa awood u leedahay hal maalin inaad ka gudubtid challenge-ga oo ugu gudubtid maalinta ku xigta lagu siiyo verification-ka hore ka gudubtid halka FTMO ay tahay ay leedahay 8 ama 10 aan dhahay maximum minimum trading days-keedu ay yihiin 10 beri waa inaad shaqaysid verification-ka ku jirtid waa inaad 10 beri trade furtid haddaad ku jirtid verification-ka haddii aad ku jirtid challenge-na waa sidoo kale kan funding talent
maalinka aad ka gudubtid hal maalin haddaad ka gudubtid hal maalin baa ka gudubtid challenge-gii maalinta labaad baa waxaa u gudubtaa verification-ka haddaad maalinta labaad verification ka gudubtid isla maalintaas waxaa lagu dhiibayaa ku xigta waxaa lagu dhiibayaa akoonkii aad ku tirigelin lahayd halkan saa ma aha waa in aad tomberi tirigelaysaa oo tiradha furtaa weliba withdrawga markii loo yimaado waxaan ku xijinayaa withdrawga ii dambeeyo halkan hoose ku jiraa commissionka waxaad dadka ku tiragelinaya FTM challenge ay arkeen inuu commission leedahay halka serverka cusub oo funding talent oo hadda ay sameeyeen uu zero commission yahay oo wax commission aan lahayn wax commission ah uusan lahayn spirit-ka FTM challenge spirit-ka xoogaa badan yahay halka spirit-ka funding talent uu yahay mid xadidan oo aad u yar oo laga taxadiray spirit oo ku jira laakiin FTO keedoo kale ma aha oo mid ka yar commission spirit intaa ka gudbo waxaa igu xiga withdrawga markaan withdraw sameynayo marka waxay dhahaan FTO challenge-ga waxaa arkaysaa marka aad withdraw sameynaysid inaad ay tahay bil inaad sugtid ama month complete ah inaad shaqaysid kadib aad withdraw sameyn kartid halka funding talent which is better uu yahay 2 weeks baa shaqaynaysaa markaad akoonka lilka haysid after 2 weeks waa la bixisaa 2 weeks kala shaqaynaysaa waa la bixi kartaa lacagtaada macnaha labadii week ba marba la bixi kartaa halka kan bil dhammaystiran loogaa rabo kan withdraw waxaad samayn kartaa labadii macnaha waa akoonku waa akoon lagu dhiibay waxaa la rabaa in limit u lahdo macnaha la bixidu sidii akoonkaaga oo kale xilli harto wax lama bixi kartid wax ma gelin kartid laakiin kan wuxuu kaga fudud yahay 2 asbuuc keliya ayaad shaqaynaysaa wixii aad shaqaystay baa kala qaybsanaysaa 20 kooda qaadanaysaa 80 kaaga qaadanaysaa waa la baxaysaa half kadib haddana 2 asbuuc kala shaqaynaysaa half way easy waa wax sida akoonkaagii oo kale kadib qofku baahida 2 asbuuc intuu la baxo oo 2 asbuuc kadib haddana ugu baahan karo waxaan u malinayaa degdeg asbuuc 2 asbuuc kadib ka hor ugu baahan karo dee waxa waaye waa wax aad u yar oo reer ah saaxiib yaal intaas aan idin wadaagayaa waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan haddaa intaas soo gaartay waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka fahantay sida u shaqeeyaan funding companiesku sidoo kalena aad ku qancday kii aad dooran lahayd labadii aan kula wadaagay mahadsanid